مسؤولينta wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska dawladda federaalka Soomaaliya ayaa kulan ku wadana xoojinta wada shaqeynta iyo ka qayb qaadashada barnaamijka xilqaan kula qaatay magaalada Muqdisho qaar ka mid ah shirkadaha dhismooyinka ee ka howlgala gobolkani Banaadir. Faafahinta warkaasina waxa inoo haya wariyahayaga Abdullahi Ahmed Kulmiye. barnaamijka hirgelinta qorshayaasha dhismaha iyo dib u soo celinta bilicda dalka waxay tahay xilligan mid si dhab ah u wado wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda federaalka Soomaaliya ayadoo kaashanaysa hay'adaha caalamiga iyo kuwa ka shaqeeya gudaha dalka. talaabadan lagu xoojinayo arrimahan ayaa si loo falanqeeyo waxay wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda federaalka Soomaaliya ay kulan la qaadatay shirkadaha dhismooyinka ee ka shaqeeya gobolka Banaadir. wasaaradda howlaha guud hadda waxay saxeexday kontraagyo badan iyo heshiisyo badan oo ay la gashay beesha caalamka ka xukuumad ahaan oo daraato ugu dambeysay waa la socotaan heshiiskii aan ku wasaaradda arrimaha dibadda saxeexaysay wasaaradda howlaha guudna ay gobjoog ka ahayd dib u dhiska imanaya idinka laftiin inaad wax ka qaadataan oo aan la noqon hadhowto qof walba intuu liisan samaysto inaanu oran shirkadda aan hay company aan hay allay contract aan soo qotaa lagu soo hay laakiin ay noo mudnaanta in dad noo leeyihiin. wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa wada qorshayaal lagu dhisayo wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka kadib markii ay dhawaan heshiis caalami ah kala saxdeen safaaradda Talyaaniga ee Soomaaliya. waa siyaasadda xukuumadda waa siyaasadda wasaaradda anagoo ka turjumayna. runtii maanta sharaf weyn bay noo tahay beeblenka waxaa ku soo jira heshiisyo badan oo lagu dhisayo wadooyinkeennii dalka ama kuwa dhaadheer ha noqdaan ama kuwa yaryar ha noqdaan intaba insha Allah waxaan rajaynaynaa November in mashaariicda ugu culus ay noo bilaaban doonaan sidaa darteedna in la iska warqabo oo kambaniyada iyo anagu aan iska warqabno sidii awal baan iska warhaynay. shirkadaha dhismooyinka ayaa si aad u soo dhaweeyay inay kaalin weyn ka qaataan hirgelinta barnaamijka xilqaan maadaama dawladda Soomaaliya ay wado ahmiyadda horumarka higsiga mustaqbalka dhow ee Soomaaliya. Abdullahi Ahmed Kulmiye, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.